isagoo oo inanka yara 6 jir sidoo u soo socdo ayaa wuxuu faliisan jiray firaashka awoogi sidoo u soo socdo ay firaashka la fariisan jiray markaas ay oran jiray ka kac adeeradii in keen riixaan bay rabaan oo yiraahdaan ag fariiso meelaan fariiso firaashka lagu lama faliisto odayga sidoo u soo socdo nabigu faliisan jiray firaashka kaleey salaatu markaas wuxuu oran jiray ii daaya inankayga da'u ibni hada فوالله إن له لشأنا أربع السجن وحفراشك أصو فرسانيو أربع كراني كاني ولا صار بينيا ولا صار إسيا النبي عليه الصلاة والسلام نبرك مسيحي شري ماذا حقولت أتابن شري مرمرك قال كذا وحقولي شري هول أورنج الأرض سوقة سدوا يهاي يوسف فلين شري أرنتو مال ما ها كمدا أيا وحكولي أرض هشي ماشى ككان meel baa marka waa la waayay warkiisii odaygii aad buu u murugay kacbadu ku wareegay isagoo u murugaysan caruurtiisii oo dhanna meel walba u diray ordo oo raadiya Muhammad waxa uu ku ducaysanay isagoo oo kacbada ku wareegaya ayaa waxa uu lahaa rabb rudd raakibi Muhammada ruddahu li wasna indi yada ilaahu Muhammad isuucil ilaahu wanaag ismay Muhammad suucil كدب نبي عليه الصلاة والسلام إن يكذب ويمد مركز وحى أقول لقد حزنت عليك يا ابني كالمرأة وانكم مرجودي بيجي إنك هيجيو سيد هواني دو أمرك تأكل أيانكم مرجودي حزنا لا يفارقني أبدا مرج أن إجا فاروقي أيانكم مرجودي وحى أقول لك شوقي أوجي لبصنا وأمس سنة مركز النبي وسيدة شير أوجينا وردنتي النبي عليه الصلاة والسلام ما كوكودنت ده أديس وحي أهيد علماء قاركود وحي لين بقول إيه تبن شير بوه قاركود وحي بقول إيه أفر تنبوه لا يبقى أوكي أدينا أنتو النبي كورينا يلا بصنا أدو أجمرجي wuxuu u yeedhay inankiisii markuu arkay inuu xanuunsanayo xanuunka uu ka kacayn ayuu u yeedhay inankiisii Abi Talib ayuu u yeedhay nabiga adeerkii Abi Talib iyo Abdullah nabiga abihi waxay ahaayeen isku bahbay ahaayeen yaani isku hooyo iyo aabbo ay ahaayeen labadaas quraata isku hooyo aabba inta kale hooyooyin kale ay ahaayeen wuxuu u yeedhay markaa أبو طالب أياري عبد المطلب أياري إنك كيس وحى أكويري إنك أذانك أجهي محمد وكا هو يدي أبيه وردنتين أنيجي نوانيجا أذانك أجهي ويا هي ويري وردنتي أذجي أبوجي نبي آد بأجمرجي عليه الصلاة والسلام waxa uu soo wareegay kafaaladii iyo barbaarintii adeerkii Abu Talib odagan adeerkii Abu Talib uu ciyaal badan yahay lacag badanna ma haysto waa iska miskiin faqiir weeyaan wuxuu u baahan yahay isaga u baahan ba wax caruurta la koriya ayuu u baahan yahay aad buu u jecel yahay Muhammad caruurtiisa kale oo dhan wuxuu leeyahay laga qabto walaalihi buu leeyahay caruurta ila koriye laakiin Muhammad waxa uu leeyahay aniga uma korinaya nabigu calayhi salaatu wassalaam adeerkii u soo wareegay waa amsa jir nabigu ya 8 jir weeyaan adeerkii baa korinaya hadda nabigu calayhi salaatu wassalaam isaga oo yar oo 8 jir 9 jir isagoo oo da'daasa ayaa nabigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu ka fikirayaa adeerkii sidoo u gargaari lahaa ayuu ka fikirayaa wuu ciyaal badan yahay waana miskiin wuxuu bilaabay nabigu calayhi salaatu wassalaam inuu adhiga eego adhiga inuu reema ka u eego adhiga oo lacag ka qaato oo lacagta adeerkii siiyo ciyaalkeenu maanta way cunaano way cabaano odaygii oo macaan leh oo dhanaan leh oo sariir leh oo gebigiisu wala xanuunsanaya ayaa subaxdii ka lahaa oo doorkii yimaada wiilkii oo iska hurda
wuxuu qabanaya male duhurkiibuu kicii markaasuu leeyahay jaadkii aawe innaga waa sida xaaladdeenu waa kaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga oo yar oo 8 jir 9 jira ayaa wuxuu ku fikirayaa siduu u shaqaysan lahaa adeerka u gargaari lahaa ayuu ku fikirayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam reemaka ayuu adhiga u eegayey lacag buu ka qaadan jiray waxa uu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maa bacaa allahu nabiya ilaa raca alghanam ilaahay ma soo dirin nebi ilaa adhigu soo eegayey nebi walba adhigu soo eegayey nebi muuse waad garanaysa adhigu soo eegayey nebi ciise nebi walbuu ilaahay soo diro adhigaa la soo raacin jiray cajiib meesha waa la soo tarbiyaynayaa addabanii rabbii fa axsana ta'diibii adhiga ninka adhi jirahu uu ka sabir badan yahay ka geela jira geela waad ku sii dayno neefka meelaha umudaaqi oo khalaas marka dambana uu iska fadhiisan adhiguu kala baahi kana jabi kana meel ka dhici uu kala baahaya adhigu wuxuu u baahan yahay waxaasoo dhan in la soo celiyo wuxuu u baahan yahay ka tabarta dara inaad qaadid wuxuu u baahan yahay inaad isku keentid ma faliisanaysid kan geela eegaya ama looda hadhku iska geedka hoostiisa iska faliisan xaggaam ka eegi ka adhi jiruhu ma faliisanayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddana loo diri doonaa way kala baahsan yihiin caqiidoo kala duwan bay wataan asnaam fara badan bay wataan sabirkaa la baraya adeegaa la baraya waa la soo rabaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam adhi jire ayaa laga dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la barayaa alyad alculya khayru min alyad asuflaa inaad isku filnaatid adigu ayaa la barayaa asxaabta waxaa ku yidhi nebi allo adiguna adhiga maad eegi jirta haa buu nebigu yidhi waan eegi jiray wuu ku faanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waan eegi jiray adhiga lacag yar baan ree maka ugu eegi jiray xaafid ibnu xajar markuu ka warramayey arrintaasi waxa uu keenay adhi jiraha inta faa'iido uu helo ninka adhi jiruhu sabirkuu bartaa dulqaadkuu bartaa tawaaduc isma weynaysiiyo oo maarata waa adhi jiraan ahay buu leeyahay isma weynaysiinay sabirku baranayaa yani wax badan buu maarata ayuu sheegay ilaahay wuxuu karaa nebigiisa calayhi salaatu wasalaam inuu guriga u joogo dahab u buuxiyo oo lacag u buuxiyo oo ilaahay wuu karaa laakiin nimcadda zaayidkii ma soo saarto qof fayow carruurta yare nimcadda ku korta cun oo cab oo seexo oo maarata ma fikirayo wax ma baranayo aabbihii baa lacag leh ma fikirayo ummadda humuumta haysa televisoonkaasuu daawan kanuu cuni kanuu jebin baabuur kala jiituu wataa ma fikirayo se ummadda u fikirayo ma fikirayo kaa yare shandadda marna tidhiga laga goynayo marna biyaha laga goynayo ee xamaalanaya ee ordaya ee kaasaa wax baran kara ilaahay waxa uu barayaa nebigiisa calayhi salaatu wasalaam inuuna dadka u baahan u shaqaysto ayaa la barayaa ninka daaciga ah waxaa la rabaa inay gacantiisu ay ka sarayso inuu dadka u baryo oo dadka uu ku maarata hoos joogo ambiyadu saasay ahaayeen dadka lacag kama qaadan jirin waxay odhan jireen wayaa qowmi laa as'alukum calayhi maala in ajriya ilaa cala allah wax iniga doonaya male dadow lacag inigama rabo waa shaqaysanayaa ee ilaahay xaggiisaan inigu yeedhaya nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده waxa uu yidhi qofi ma cuno cunto ka khayr badan waxa uu soo shaqaystay isagu waxa uu soo shaqaystay taas ugu khayr badan cunto aad cuntid cuntada aad soo shaqaysatid ayaa ugu khayr badan nebigu waxa uu yidhi wa ina nabiy allahi daawuud calayhi الsalaam nebi daawuud kaana ya'kulu min camali yadih waxa uu shaqaysto ayuu cuni jiray beruhu garaaci jiray oo marka qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu shaqaysto una u baahan dadka abu aalib waxaa guriga ku soo biiray moxamed calayhi الsalaatu wasalaam kow marka hore nebigu culays kumuu soo biirin reerkii shaquu bilaabay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ta labaad waxay arkeen guriga inuu soo galay wiil yaroo barakaysan waxa uu arkay carruurtiisa markuu cuntada u dhigo markaaba way ku leefaan ma dhargaana way soo taagan yihiin laakiin markuu nebi moxamed la cuno moxamed markuu la cuno calayhi الsalaatu wasalaam way dhargayeen
wuu arkay taa caano hadday cabbaan ma kaafinayso sidaa awgeed wuxuu odhan jiray markuu cuntada uu soo dhigo ayaa wuxuu odhan jiray sidaa aad tihiin ahaada kamaa antum xataa ya'tii ibnii ilaa inankayga uu ka imanaya maxamed markuu yimaado ayuu odhan jiray la cun markaasuu bilaabi jiray markaasuu odhan jiray ma inigu filan tahay haa way dhergeen caano markii la keeno da maxamed buu ku bilaabi jiray nebigu markuu afka uu saaray barakadiisii ku yaacdo way ku filnaan jirtay inta kale markaasay wala cabbayeen waxbaa ka soo hadhay haddii kale waa lagu go'ayaa meesha subaxdii markay carruurtu soo toosaan xafaji iyo kusoo toosaan ma qaar dhareerli iyo waxay arkeen haweenadiisa faatuma la odhan jiray oo aad u jeclayd nebiga calayhi salaatu wassalaam waxay aragtay carruurtu markay subaxdii soo wada toosaan iyakoo xafajo leh oo dhareer leh laakiin nebigu wuxuu soo toosi jiray calayhi salaatu wasalaam isagoo oo dhalaalaya oo indhakuulan ayuu soo toosi jiray dhareer iyo xafaji iyo midna aan lahayn ayuu soo toosi jiray wuu arkay barakada iyo khayrka ka soo socda ayuu arkay kadib maalin maalimaha ka mida waxaa dhacay abaar xoogle ayaa dhacday ree maka abaar bay dareemeen roobkii baa habsaamay waa la isku ororday waxaa loo yimid abu aalib waxaa la yidhi kaaliban roob doon baan samaynaynaaye abu aalib waxa uu soo kaxeeyey sida uu ibnu casaakir uu ku soo saaray kitaabkiisa waxa uu soo kaxeeyey maxamed buu soo kaxeeyey isagoo ujiidaya oo carruurtiisina wala ag socoto waa khayr buu ku ogyahay barakuu ku ogyahay kacbada ayuu dhabarka u saaray dadkii oo dhanna xaggay joogaan qacantu ku fiiqay yaa rabbi wax baan ku weydiisanaynaa yaa rabbi roobna si isagoo farta ku fiiqaya waxa uu yidhi faaqbala asaxaabu min huna wa min huna daruurihuma isa soo qabsaday dhinac walba ka yimid roob baa noo fatahay webiyaashii baa jabay dhulkii oo dhan nimcad iyo khayr baa ka dilaacay waa barakada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وكيلها أبو طالب بركذا سكرك وحدوني يا مر والبهد السيء بركذا أهله إنه أكحيو ميل والب حتى مركو تجارة جناعسي وجناعسي تجيو شوشة قيسانيو وحر ما إنه كحيو محمد سيء بركذا يا خير كاس أهله وحا uu doonay inuu ganacsado odaygii abu aalib ahaa shaam buu tijaaro geynayaa xaggaa iyo shaam buu u kacayaa nebiga da'diisu waa 12 jir hadda da'diisu waa imisa waa 12 iyo 2 bilood abu aalib ayaa ka haystay wuxuu rabaa inuu baro suuqa sida loo ganacsado waxay socdaanba markay shaam yimaadeen meel basro la yidhaahda markay yimaadeen waxay raacsanayd roomaanka markay haysto xukmu roomaan bay haystay laakiin waxay ahayd carabta waa dhulkii carabta ay roomaan ku haysteen dariiqaas meesha marka ay joogaan meesha ninbaa iska fadhiya raahiba sheekh culimmadii waaweyneed ee kiristanka ah ayaa meesha iska fadhiya meeshaasuu ku cibaadaystaa adduunkan iyo waxaanaan ka go'ay buu leeyahay anu xaggan baan ku cibaadaysanayaa ninkaa raahibka ah buxayra ayaa loogu yeedhi jiray laakiin magaciisa waxaa la odhan jiray jarjiis baa la odhan jiray dadka uma soo bixi jirin maalinkaa wuu soo baxay way ka yaabeen cunta u sameeyey wuu soo dhoweeyey way ka yaabeen mar walba waan soo marnaa ninkan ma soo baxay maanta inta soo baxay cunto loo sameeyey casuumadii maxaa dhacay dadkii buu dhex marmaray dadkii siduu u dhex socday ayuu maxamed qacanta qabtay calayhi الsalaatu wasalaam markaasaa waxa uu yidhi hada sayid الcaalamiin hada yabcaثuhu allahu raxmata lilcaalamiin kani waa sayidka caalamka oo dhan kani waa ka
ilaahay naxariis uu soo diri doono ummadda oo dhan caalamka oo dhan abu aalib ayaa meesha ka soo booday markaasaa waxa uu ku yidhi maa hada algulaamu mink wiilka yar maxaad u tahay markaasaa waxaa yidhi waa inankaygii aad buu u jecla marka wuxuu odhan jiray waa inankaygii adeer baan u ahay ma odhan jiri waa inankaygii buu yidhi waxa uu ku yidhi maa huwa biibnik inankaaga ma aha runta sheeg waxa uu yidhi adeer baan u ahay aawe aabbihii buu yidhi wuu dhintay buu yidhi waa sax buu yidhi isaga oo hooyadii ay uur leedahay ayuu dhintay waxa uu yidhi wiilkan yar la noqo maka la tag sida ugu dhaqsaha badan ula noqo ninkan yar wuxuu noqon doonaa rasuul buu noqon doonaa nebi ayuu noqon doonaa waa nebiga la sugayo waxa uu ku yidhi oo maxaad ku og tahay maxaad ku garanaysaa waxa uu yidhi markaad meesha yara taagga aad ka soo dhaadhacayseen baan ini eegayey wallaahi lam yabqa xajarun walaa shajar ilaa wakhara saajidan dhagax iyo geed muu soo agmarin ka yari ilaa way u sujuudayeen dhagaxa u sujuudayey geedka u sujuudayey wax walbuu agmar uu u sujuudayey sujuuddu caabudaad ma ahayn waqtigaa yacni waxa weeyaan waa salaan way salaamayeen walaa tasjudu ilaa linnebiy nebi mooyaane wax kale uma sujuudaan wa innii acrifuh bikhaatami nubuwa fii waxa uu ku yidhi waxaan ku garan oo kale dhabarkana shaambad buu ku leeyahay nebinimada caddaynaysa inuu nebi yahay dhabarkiisuu eego calaamaddii sida tufaaxa oo kale oo inuu aakhiru ambiyaa inuu yahay caddaynaysa shaambad ayaa ku taala waxa uu yidhi wiilkan yar la noqo yahuuddu way garanaysaa kitaabkuu ku qoran yahay tilmaamihiisa waa nebi ciisa sii sheegay nebi ciise ka sii warramay akhlaaqdiisa magiciisa calaamaadka lagu garanayo oo dhan nebi maxamed baa nebi ciisa sii warramay waa la wala garanayaa waqtigiisiina uu dhow yahay marka waa la wala sugayaa markay arkaan isaga oo geedihii u sujuudayaan dhagixii u sujuudayo waxay odhanayaan waa kana way dilayaan roomaankuna way dilayaan marka kan yar haddaad la tegtid shaam yahuud baa joogta meeshaas way garanayaan horena way ka dilayaan waxaan kugu dardaarmi inaad celisid odaygii baa doonay inuu ku yar adkaysto may waa ka tegi kari maayo waa inaan u yariyo ana noqon kari maayo waa u diiday si walba celi buu ka yar siduu u waday wuu celiyey isagu ma celinaya wuxuu raaciyey dhalin yar buu raaciyey waa la celiyey nebiga calayhi الsalaatu wasalaam maka ayaa dib loogu celiyey nebiga da'diisu waa 25 jir waan talaabsannay 25 jir markii uu gaadhay nebigu waxaa dhacay dagaal la yidhaahdo xarbulfujaar ayaa dhacay quraysh iyo kanaana reer bani kanaana oo dhinac ka soo jeeda iyo qays qabiil la yidhaahdo qays ibnu caylaan la yidhaahdo ayaa iska hor yimid oo islaayeen marka quraysh baa aad isku dhexdoodii dagaal xoogla ka dhacay waa qurayshum waa qabaa'ilkii quraysh ayaa islaayeen nebigu calayhi الsalaatu wassalaam dagaalkaa uu ka qayb galay laakiin ma dagaalamayn ilaahay baa ka ilaalinaya inuu wax dhiig uu yaaciyo adeeradii buu laabka u hagaajinaya u siinaya u difaacaya bes laakiin ma dagaalamayo nebigu calayhi الsalaatu wassalaam waxaa xarbulfujaar loogu bixiyey bilihii xurumka ahaa ee la dagaalamayn ee xaaraanta ahayd in la dagaalamo ayay dagaalameen marka waxaa loo bixiyey xarbulfujaar waa dagaalkii kuwii dembiilayaasha ah ay dagaalameen ayaa loo bixiyey kadib waxaa dhacay nin ayaa yimid yaman ka yimid maka ayuu yimid wuxuu wataa hamaan buu wataa wuxuu rabaa maka inuu ku iibiyo waa reer zubayd waa yaman markuu ku iibinayey nin la yidhaahdo alcaas ibnu waa'il assahmi ayaa ku yidhi xoolaha iga iibi xoolihii buu siiyey hadhow baan kuu keeni buu ku yidhi kaala iga qaad buu ku yidhi kaala iga qaad waa tamaanta la yidhahdo kaala iga qaad waa u diiday arrintaasi dhibaatay ku noqotay ninkii qabaa'ilkiiba u dhawaaqday cabdidaar
makhzuum reer jumax sahman qabaa'ilkii buu dhawaaqay war ii gurmada yaman baa ka imid xoolaan wato xoolii ninkana iga wala dhacay war hala ii gurmado war waa maka ree makaa tihiin war wuu cabaaday meesha wax u dhaqaaqa ayaa la waayey arrintaasi markii ay sidaa dhacday ayaa waxa uu koray buurta la yidhaahdo abi qubays iyo kor ninkii buurta korkeega ayuu ka dhawaaqay gabay buu jiriyey marka uu leeyahay ma la ii gurmado xaram baa lagu jiraa ma la ii gurmado oo la ii naxo nin baa xoolahaygii dhacay waxaa u tegey zubayr ibni cabdilmuطalib ayaa u tegey waxa uu yidhi war ninkan intuu isagii soo kaxeeyey ayuu carabtii kuwii quraysh ayuu u yimid waxau uhi wareedhaha sidani sax ma ah ninkani waa makan dhex joognaa dad baa lagu dhacaya xaramka dhexdiisa miyaa sax ma ah ninkan maan u kaalmayno oo wax u qabanno waa la iskugu yimid meeshii qabaa'ilkii oo dhan baa iskugu yimid reer bani haashim reer bani cabdilmuطalib asad ibni cabdilcuza zahra ibnu kilaab taym ibnu mur qabaa'ilkii baa iskugu yimid guriga waxaa la isku yimid cabdillaahi ibnu jadcaan gurigiis ayaa la isku yimid heshiis baa lagu galay ballan adag baa la iska qabtay in nin alla ninka maka lagu dulmiyo in loo kaalmaynayo muxamedna uu ka qayb galay sala allahu calayhi wasalam nebiguna shirkaasuu ku jiray waa nusrat almadluum ka la dulmiyo ee la gardaraysto waa in la difaaco taasaa lagu heshiiyey way dhaqaaqeenoo ninkiiba xoolihii uga soo qaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku faani jiray waxa uu odhan jiray waa markii dambe uu nebi noqday laqad shahidtu fii daari cabdillaahi bnu jadcaan xilfan maa uxibu ana lii bihi xumuru nicam wuxuu odhan jiray waxaan ka qayb galay shir ama heshiis lagu galay guriga cabdillaahi ibnu jadcaan oo dulmiga lagaga hortegayo wallaahi wax aan ka jeclahay ma jira buu nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii la igu yeedha iminka kaasoo kalena la ajabtu buu yidhi nebigu waan yeeli lahaa waan ajiibi lahaa waxaa loo bixiyey xilf alfuduul ayaa loo bixiyey yacni qaar badanoo fadl la odhanayay ayaa ku jiray culimmada qaarkood yidhaahdaan markaasaa la yidhi waa heshiistii dadkii fadli ka kacayay xilf alfuduul baa loo bixiyey nebigu waa ka qayb galay da'diisu waa imisa ya 25 jir weeyaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam way socotay noloshu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam 25 jir isagoo oo weli da'diisu ay tahay ayaa waxa uu bilaabay in uu ganacsi u shaqaysto isagaa tijaaro bilaabaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam tijaaro ayuu bilaabaya laakiin intaan tijaarada aanu sheegin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa inan yar da'diisu waa 25 jir ilaahay waa ka ilaaliyey nebigiisa wax alla waxa xumaanta ay shabaabku sameeyaan oo dhan ilahay waa ka ilaaliyey khamri ma cabin sanab uma sujuudin gabadh lama haasaawin wax walba oo xumaano oo dhan ilaahay waa ka ilaaliyey nebiga calayhi الsalaatu wasalaam adabanii rabbii fa axsana ta'diibii ilaahay baa soo edbinayaa wala soo diyaarinayaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam xumaan oo dhan waa waqtiga shabaabku uu kulul yihiin xumaan oo dhan iyuu ilaahay ka soo ilaaliyey waxa uu yidhi nebigu maa hamamtu bishay mima kaana fi ljaahiliya wixii dadka jaahiliyaddu ay samaynayeen kumaan hambiyin buu nebigu yidhi kuma fikirin laba goor mooyaane waxa uu yidhi labadaa goor isaga oo nebigu uu ka warramayo waxa uu yidhi labadaa goorna ilaahay baa iga qabtay aniga oo buurta jooga oo adhi ku eegaya ayaa wiilkii yaraayo adhiga ila eegayey ayaa waxaan ku idhi adhiga iga sii eeg caawa han soo caweeyo makahan tago shabaabka makaan la soo caweeyey waayahay buu yidhi wuxuu yidhi waan imid makaan imid boorti baan ka imid waxaan arkay guri lagu ciyaarayo
shanqadha iyo wax ka dhacaya aan maqlayo ayaan imid buu yidhi markaasaan waxaan idhi maxaa meesha ka jira markaasaa waxaa la yidhi waa aroos waa la ciyaarayaa oo meesha waa lagu tumanayaa waxa uu yidhi waxaan doonay inaan dhegaysto oon daawado sida u ciyaarayaan waxa uu yidhi meeshii aan sidaa u fadhiistay ilaahay hurdu ii keenay dhag indhaha uma la igu qabtay wallaahi maa ayqadanii ilaa xaru shams cadcadda iftiinkaygii iyo kuliilkaygiiba ay toosiyey buhi nebigu subaxdii waa la iseexiyey cadcadda kuliilkaygii ayay toosiyey subaxdii meesha waa laga kala tegay arooska waa laga kala yaaco waa la dadka way seexdeenoo waa la tooso cadcaddiiba ay toosiyey buhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kalena sidaas silag baan ku fikiray buu yidhi inaan soo caweeyoon sidii silag hurdaa laygu salliday waa la ii geliyey buhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu yidhi bacdahaa iguma soo dhicin inaan caweeyo oon shabaabka iyo waxaa la soo caweeyo iguma soo dhicin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu bilaabay sala allahu calayhi wasalam da'diisu isaga oo 25 jir ay tahay inuu tijaaro ganacsi inuu bilaabo khadiijo haweeney la yidhaahdo ayaa jirta markay joogtaa waa haweeney lacag leh taajirada weeyaan sharaf bay leedahay nasab bay leedahay waa naag la yaqaano waa naag carmaliya dadka oo dhan ragga waaweynee saadada waa la furay waa aad bay u doonayaan haweeneydaa inay guursadaan lacag bay leedahay rag badan baa u shaqeeya oo lacagteeda loogu shaqeeyaa haweeneydaas ayaa waxay maqashay maxamed waa nin yaroo aamina waa nin yar run badan waxay maqashay wasfi nebiga la tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam awsaaftii nebiga waa ina yar oo adag oo quwad leh oo edeb leh oo ixtiraam badan oo been aan aqoon oo waxaasoo dhan bay maqashay wiil yar oo la jooga iyada ayay u dirtay tiri igu yeedh ha ii shaqeeyeen lacagteedii u dhiibatay wuu dhaqaaqay nebigu xagga iyo shaam ayuu dhaqaaqay si uu ugu soo shaqeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam shaam buu tegey isaga oo xoolihii wada waxaa la socday wiil yar ay maysara la yidhaahdo maysara ayaa la yidhahdaa waa addoon iyada ay lahayd khadiija wiilkaasaa la socday nebigu wax badan uu sii qaaday uu soo iibiyey aad buu u soo macaash ilaahay baa barako u gelinaya meeshuu galaba waa la sii diyaarinayaa addabanii rabbii fa axsana ta'diibi waa la sii barakeeyey wixii uu sii qaaday oo dhan waa laga qaatay barako badanna ilaahay uu u geliyey xooluu ka soo iibiyey shaam markuu kaano hore looga iibsaday barakuu ilaahay u geliyey lacag badan oo ina weligeed helin ayuu soo hooyey oo aka way jeclaatay marka wuu guursanayaa khadiija nebigu calayhi salaatu wasalaam khadiija markay aragtay barakada ammaanadiisa runtiisa wanaaggiisa quruxdiisa waa nin dhisan waa nin rabbi u rabeeyey way jeclaatay rag badan oo doonaya way iska diiday agoonkan yar ee jecesha akhlaaqdiisa diintiisa edabtiisa ay ku jecesha haweeney kale u sheegtay u sheegi kari weyday aan ku jecel ay guurso ohan kari weyday haweeney kale oo ay saaxiib yihiin oo nafiisa la odhanayay ayay u sheegtay oo tiri maxamed baan rabaa inuu guursado way dhaqaaqdo haweeneydii nebiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam ka warran bay tiri arrintaas nebigu wuxuu yidhi waa yahay oon ogolahay da'diisu waa imisa waa 25 iyadana waa 40 jir imisa sanay ka weyn tahay 15 sano ayay ka weyn tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waa naag akhlaaq leh waa naag edeb badan weeyaan nebiga arrintiibuu adeeradiibuu u sheegay adeeradiibaa u doonay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuu aroos galay khalaas u guursaday waxay ahayd haweeney sharaf leh nasabkayga la yaqaano caqli badan ayay ahayd waa haweeneydii ugu horeysay uu nebigu guursado intay noolayd haweeney kale ma guursan nebigu calayhi salaatu wasalaam awlaaddiisa oo dhanna nebiga iyadaa u dhashay marka laga reebo inankiisa
إبراهيم مركا لغا ريب انت كلا يدا ورش أولاد النبي إمسا هاي ما قرنيسان تضبع أهين أولاد النبي عليه الصلاة والسلام زينب رقية أم كلثوم فاطمة قبل أمس أفر وزينب هي رقية هي أم كلثوم هي فاطمة ويان عبد الله وين مضي عبد الله الطاهر بمجي لو يجري شري يعني لو بحيي عبد الله إيوه قاسم إيوه إبراهيم هوين كلا دشي ماريا القبطية ونكور من دونا أيا دش أولادي سجبي إن مضوا يكو ولا يربى دنتين متبالو قيمة شرط جبي يكو إن مضوا ولا يرير أيا دنتين هبلها أيا جاري إسلامك جبي قدنا ولا إسلامين ولا هجرودين جبي قد سقوا النال أيو النبي ولا آسي هبليسي إلا فاطمة موياني هبليسي جبي سقوا ولا آسي عرورتي سؤال نوحة هذا أيو فاطمة أيها هذا فاطمة مسكت بيس النبي لح بلاد بس نبي عرور ملأ ويولا الراعي النبي عليه الصلاة والسلام هو أبانا ملأ لكن نبي ما وحنكوشرنا سقوا جورسدي خديجة أرس ونكسن أيام كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام جمعها الدنباء أدو ألا يلهدو ينحقق السقاد الدونا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله. هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل